tani ma aha sheeko dhageysigeeda aan ku raaxaysanayo. asxaabtayda sheekooyinkan aan la wadaagayo ee aan soo bandhigayno ma aha tu la iga sheekaynayo oo keliya, waa tu aan nabcaysanayo inaan dhagaysto, laakiin khasab ay tahay inaan bulshada la wadaago. dhammaantood waan wada qeyroonaynaa dadyowgii gacanta nagu hayay intaannu xabsiga ku jirnay ee waxa nagu samaynayay waxay ahaayeen dadkii aan wada dhalannay, aan wada shaqaynay, eena aad ku naqaanay. xanuun badan ay run ahaantii leedahay inaan ka sheekayno waan idiin soo gudbino. bismillahi raxmaani raxiim. aniga magacayga waxaa la yidhaha halkan xasan axmed. haddii aan ku horeeyo sidii la ii qabtay maalin khamiisa taariikhduna ay tahay 22 January 2015 saacaddu ay tahay 9 galabnimo ayaa Khadar Dheere ila soo hadlay. wuxuu igu yidhi xageed joogtaa? waxaan u sheegay meesha aan joogay. waayahay wuxuu igu yidhi waynu israacaynaa, halkaa igu sug. halkii baan sii fadhiyey. 9:15 markay tahay yaa Khadar Dheere ii yimid isagoo ula socdo Sheekh Mukhtaar. waxaa la igu yidhi qalabkaagii alaabadaada soo qaado, moobayladaada iyo kombiyuutarada soo qaado. soo qaatay waan soo raacnay. laba meelood ayaa waxaa la isii mariyay guri magaalada ka mid ah oo halkaana uu Khadar Dheere uu nin igu soo yidhi Khaliil Cabdishakuur la yidhaaho. halkii baana laga soo qaaday. waxayna la soo wadaba waxaana la keenay guri magaalada dhexdiisa. gurigaas oo ah guri si transition dadka loo geeyo oo lagu sii hayo. guri baana la fadhiisiyey. annagoo gurigii fadhina aniga iyo Khaliil yaa waxaa noo yimid Maxamed Axmed Shukri iyo Khadar Dheere ayaa gurigii noogu yimid. annagoo halkii fadhina ayaa nin lala hadlay maxaabiistanadii ka mid ahaa. ninkaa waxaa la yidhaahaa Uwaas Cabdixukun baa la yidhaahaa. Uwaas Cabdixukun baa noo yimid. markaanu saddexdanadii isu nimid yaa waxaa la yidhi dantaanu idinku yeedhnay maanta waxaa weeyaan dembiilayaal baad tihin. waxaanu idin weydiinno waa inaad nooga jawaabtaan. haddii waxaanu idin weydiinno iyo xogahaanu idinka baahannahay sidii loo baahnaa aad noo siisaan waa laydin fasaxayaa. waayahay baanu nidhi bal dembigaanu annagu geysanay, annagu wax dembi oonu isku ognahay anu gacanta kula jiraa ma jireen noo sheega. waxaa la yidhi idinku waxaad ka mid tihiin dhallinyarada qorto website-ka Faaduma Firimbi la yidhaaho. gaar ahaan adigoo halgana iyo Uwaas Cabdixukun waxaa tihiin dadka maashinka oo ah dhaqdhaqaaqa iyo propagandada laga wado website-ka la yidhaha Faaduma Firimbi. run ahaantii annagu markaas arrintaas waxaanu u sheegnay inaanu beri ka nahay. waxa la yaala waxaaba yaraatee arrintaa ku sifoobaanu leenahayn ayna jirin. marka muddo dheer aan wada joognay ee moobayladanadiina laga qaaday, Facebook-annagii ay baadheen kadib waxay noo soo jeediyeen arrin ah in haddii arrintan loo haysto ay xogta loo baahan yahay ka bixin waayaan inaan hay-adaha nabadgelyada ay nagu wareejinayaan. kadib waxaanu nidhi annagu wax dembi oon haba yaraatee isku ognahay ma jiro. hadday ka fursan weyday inaad hay-adaha nabadgelyada nagu wareejisaan annagu diyaar baanu u nahay, hana lagu wareejiyo. laakiin waxaa la yaala waxaaba yaraatee dhibo oonu geysanay oo arrimaha la xidhiidha ma jiro. 9 fiidnimo markay tahay ayaa gaadhi qabaala ayaa xaafaddii soo dhex galay. gaadhigaa waxaa la socda 10 nin. hardtop ahaa. hardtopkaas wuxuu ahaa hardtopka sheekran. 10 nin baa la socotay oo liyu boolisa. waana la soo saaray. gaadhigiiba halkaana laga soo saaray. sidii nala soo waday waxaana la kala jeel ogaadeen. markii saana loo keenay tallaabadii ugu horreeyay la qaaday waxay ahayd dhammaan in dharkana laga bixiyo. waxaana lagu soo reebay saddexdanadiiba nigis keliya ayaana lagu soo reebay. kadib
ciidan fara badan oo asluub ayaa meeshii nala keenay lambar 8 baa naloo xidhay waxaa la isu xidhaa qaabka ugu foosha xun ee la isu xidhay ugu dhib badan waxaa weeyaan lambar 8 lambar 8 baa naloo xidhay kadib shafka ayaa shafka dhulka naloogu qabtay muddo waxay silsiladaasi muxuu ahaa aan la rafanaynay aan qiyaasay inay tahay 3 saac ilaa heer ay silsiladii intayna gasho ya uu bilaabay in gacaanigi ay dhig ka daato annagoo ciqaabta noocaas ku jira yaa marka ay saacada aan ku qiyaasay xilliga saacad ma hayne inay tahay 7 saac ee dambe 1 dambe yaa qabal annagoo silsiladaysan oo nigisyadii xidhan oo dhiigayna ayaa nala saaray waana la qaaday qabal bana lagu saaray waana la waday maanan garanin runaanti meesha la yaala meelna lagu wado laba qabaal oo kalena way nabada socdaan oo ay askar fara badan saaran tahay waxaana la geeyay gidibkana la geeyay 3 goobood bana loo qaybiyay 3 nin walba waxa la raaciyay ilaa 10 nin oo askar baa la raaciyay oo ninba ninku wuxuu ka xoog badnaa kadib waxaana lagu bilaabay in biyihiina la geliyay gidibka dheer 4 nin anu waan xusuusanaya anu waan xoog badanahay aniga waxay ihaysay silsilad baan ku xidhanahay ma awoodo isma controli karo biyihii baa leeyla dhex tagay muddo aan ku qiyaasay inayna hal sax ka yareen ayaa biyihii lagu ciqaabiyay markana la ciqaabayo waxaana dul taagan oo amarka bixinaya nin la yiraahdo Shamaaxiye oo taliyaha xabsiga ahaa xilligaas kolba la soo hadlaya mas'uuliyiin baa la soo hadlaysa ragii wax ma ka haysan baa la leeyahay kolba in yar baa waqti yarna la siinayaa chance yar oo 1 minute dhanay ma haysan xog dhaba Faadumo Firin biyaa qora Faadumo Firin muxuu ah xogtaad ka haysan sheega yana lagu lahaa biyahana lagu celinayay ilaa muddo ilaa waxa biyihina la gelinayay ilaa aanu gaarnay inaan unconscious noqono oo totally runaantii aanu ma ogeyn gool gidibka la geeyeen baan ogaa laakiin mar la iga keenay ma ogeyn marka aan ogaaday ee igu dambeysay igu xigtay miyir waxay ahayd habeennimada aroornimadii dambe markay 4 saac ahayd yaan sarkay anoo qol yar oo sibira dhex fadhiya inta ka horeysay oo dhan maan ogeyn runaantii waan xusuustaa inay meeshan tahay meel la isku ciqaabay caqabad waxaan ogaaday markii aan soo miirsaday yaa albaabkan soo fiiriyay magac baan ku arkay magacaasi muxuu ahaa Khadiir Cabdiraxmaan baan ku arkay oo hadda ka hor muddo ku xidhnaan jiray halka caqabada ku jiray oo iga sheekin jiray marka waxaan xusuustay caqabadu iga sheekin jiray Khadiir ee uu ku jiray inay caqabadan tahay markaasan soo miir aniga igu horeysay kadib caqabadii sibirka ahayd dhaxan aad u badan baa jirta waxaan ku jiray aniga oo dhaawaca oo gamcuhu dhiigayaan oo laba kada qamxood qaadi karin muddo 17 cishaan ku jiray oo ay barreen gamcuhu infection intay qaadeen aan labada qamxood qaadi lahay cunto ma cuni karayo musqul ima geynayo meesha gudaheedan ku saxaroonaya 17 cisho kadib yaa waxa la iga soo saaray meeshii caqabada ahayd anigoo wari nigiskii xidhan anagoo 7 ayaana la soo saaray waxa la isugu kana keenay jiingad yar oo cidhiidhiya oo aad u kulul habeenkii qabow maalintiina kuleyl aadan joogi karin dushayna ga xidhan tahay waxaan nahay 7 nin aniga Siraaje Xaaji Mataan Khaliil Khadiir Ahmed Saafi 7 noocaas aan nahay waxaan ku jiray 22 cishaan halka ku jiray waanu bedelanay waanu casaan nooc kala noqonay waayo habeenkiina waa qabow maalintiina waa kuleyl mayd ma helo
biyo ma helo waxba ma helo cuntadana la siinayaa waxa weeyaan furun engegan oo naftaadu ogolaanayn ma raba inaad cunto bariiskana la siinayaa waxa weeyaan bariis biyo intii lagu shubay laga soo rogay oo aan cunahaaga ka degin cunahaaga aan ka degin oo waxba lahayn saliid lahayn waxba lahayn oo damiirkaagu xitaa ay adag tahay in maad garanaysaa aad qodato qaadato runaantii markaanu in muddo halka ku jiray aan ku qiyaasay inay bil ahayd ya inuu halka ku dhex saxaroonaynay halka ku dhibaataysnayn meeshaas marka sibir ma ah runaantii laakiin waa carro wax gogol ma haysano 22 ka cisho waxaanu xidhanahay nigis baan xidhanahay intanadaba 22 cisho markaanu halka ku jiray ya habeenada kamida markay saacadu ahayd 7 saac habeenimo ya waxaan noo soo galay taliyihii xabsiga iyo askar muxuu ahaa isugu jirta liyu boolis iyo asluub dhamaantano sidii caadada ahayd in loo xidhi jiray baan loo xidhay number 8 baan loo xidhay baabuur qabaala ayaa dabadana laga saaray waxaan nidhi xageed ugu wadan wuxuu yiri madaxweynihii baa la idin geenaya waxaan ku nidhi hadii madaxweynaha loo geenayo sababta anagoo qaawana loo geenayo ama naloo xidhaya maxay tahay waan xusuustaa taliyihii xabsigu markaa wuxuu igu jawaabay waxaan tusaynaa madaxweynaha oo ku qancinaynaa inuu ogaado ama uu xaqiiqsado idinka in heer kale idin ciqaabaya inta ay tahay ya marka waxa laga yaabaa buu yiri hadii aanu idin geenin idinkoo qaawano sidaan u ciqaaban inuu idin naxariista laga yaabo marka madaxweynihii baan idin geeninaa runtii anagu marka waxaan isnidi hadalkaas waa run madaxweynihii baa idin geenaya laakiin sheekadu sheeko kale noqotay halkii baan laga soo saaray markii xabsigana laga soo saaray ee ka soo soconay xabsiga muddo aan ku qiyaasayo inay ahayd mitir aan ku qiyaasayo 1 kilometer waxaan ka badnayn yaa meel nala istaajiyay ciidankii asluubta ahaa ee nala socday oo dhan waana laga reebay waxaa nagu soo haray taliyihii xabsiga keliyada mugdi weeyaan dhulku halkan waxaa ka soo baxay labada dhinac ciidamo liyu boolis oo qoriyo wata oon ku qiyaasay inay tirada ahaayeen 7 nin ahaayeen 7 nin baa nala soo saaray waana la soo kaxiyay magaaladana laga saaray runtii waxaan xusuusanayaa oo garanayaa xagaas iyo muxuu sheekh Nur Ciise ayaa naloo saaray runtii waan garan weynay anagoo silsiladaan ku xidhanahay liyu booliskina soo raacay madaxay naga istaagayaan marka xagga naloo saaray waxaan ogaanay meesha naloo wadaa inaan ahayn meeshii uu sheegayeen madaxweynaha inaan naloo wadin kadib waan nala waday runaantii marka waxaan isnay runtii waa la idin soo dilayaa waayo wax kale oo marka istusi karayna ma jirto wixii nala sii wada muddo waxaana laga saaray magaalada 3 kilomitir anu ma garanayn runtii ma garanayn meelna lagu wado meel mugdi ayaana lagu dajiyay kadib meel aad moodayso biyo xidheen oo kale oo marka anaga nagu cusbay runtii yaa anagoo silsiladii ku xidhan oo taag ah yaan fuuli kari weynay shafkan ku fuuleynay waana la garaacay anagoo shafka ku fuuleynay kadib markaanu meeshii kornay yaa shamaxiye yaa wuxuu igu yiri halgan maad isku soconaysaa oo ma sheegaysaa faadmo furan bir ruuxa qora iyo maad garanaysaa passwordka aad haysid ma sheegaysaa waxaan ku yiri galbi igu yiri horta meeshan maad garanaysaa runtii ma garanayaan ku yiri anigu markaan biyaha u dhex istaagay waxaan gartay meeshani inay tahay meel wasakh ku jirto waayo xaar ba ka soo uraya kadib mid anaga naga mid dhalinyarada ayay yaqaanay meesha waxaan ku yiri xaaji mataano meeshan maad garanaysaa wuxuu igu yiri waa meesha xaarka magaalada lagu shubo halkii baan la geliyay dhamaantan ya xaarkii baan la geliyay muxuu ahaa inta dhagaxaan weyn baan lagu garaacaya waxa la leeyahay iyagu weydiidayaan inay galaan meesha laakiin dhagaxaan weyn baan lagu garaacaya galba la igu yiri waan galay xaarkii baan gebigeygu soo dhex galay ana ugu horeeyay ya waxa la igu yiri waxa ma haysaa waxa ma hayaan ku yiri waxa la yaalo waxana ma jiro ya kadib waxaana lagu bilaabay in la garaaco xaarkii baan la dhex geliyay muddo 2 saac yaanu xaarka kulbana la gelinayo oo xaarka ku dhex jiray waan xusuustaa waas Cabdi Xukun iyo Siraaji way ku dhiman gaadeen xaarka dhexdiisa way ku dhiman gaadeen ilaa heer iyagu intee aaminaan inay ku dhintaan waayo uu kula degaya xaarkan uu kula sii soconaya iyagiiba intay dharkoodii la soo dhex galeen ya Cabdi Xukun iyo Siraaji ka soo jiideen markii Siraahay way ku dhimanayaan meesha habeenkii oo dhan halkaasna lagu ciqaabiyay waana laga soo saaray halkii baan laga soo celiyay jingadi baan lagu celiyay anagoo xaarkii u xiray Allah bilood biyana lama siin lagama maydin marka muxuu ahaa waxaan soo dhaafay
markaanu halkaa ku jirro waa lala soo hadlayaa shamaxii haye aabbo halkaas waan ku hayaa raggii xaarkiibay ku dhex jiraan waxaa la soo xidhiidhaya waan anuu garanayaa codkiisa inuu madaxweynaha iconka la soo hadlaya wuxuu leeyahay raggii wax ma ka haysaa meey waxba weli kama hayo laakiin xaarkiibay ku jiraan muddo kadib markuu annaga waxba naga waayey ayaa halkiina laga soo saaray waana la geeyey xabsigii silsiladihii baana jaraya ilaa eega silsiladihii wakaa halkaa way igu yaalaan ilaa eega wakaa silsiladihii muxuu ahaa waagii laygu xidhay wakaa nabarradii wakaa way igu yaalaan dhinac walba iga yaalaan nabarrada halkaas wakuwa halkan waa kuwa waa silsiladihiina jarayay silsiladihii siday naloogu xidhnaayeen yaa meeshiina lagu soo celiyay haddana jingadii yareed baana lagu xidhayay unconsciousna baa dhammaantana muddada aan kuu sheegaya 2 bilood xaarkii baan nahay ma laga meelin sibid waxaan seexanaynay muxuu ahaa carran seexanaynay waan xusuustaa heerka ay dhaxan ka gaadhay khaliil ninka noogu yar buu ahaa wax yuul yar buu ahaa oo laf yar oo muxuu ahaa aan iska xajinayn dhibkan oo dhan yaa gacanta axmed saafi uu barkan jiray kolba annaga midnaga mida yaan dhihi jiray gacantanada barka khaliil gacanta dad dad baan halka ku jiray waxir kadib laga soo saaray meeshii anagoo 230 qofa yaa guri baa la soo kaana keenay liida Titanic guriga dushaana lagaga xidhay Google ma laha waa sibid weeyaan Google ma laha dhammaantan 230 kanagi baa la soo kaana keenay halka dhar ma haysano maalintii la soo xidhay aniga January 22keedii ahayd 7 bilood kadib yaa iigu horreysay inaan arko ama ay ogaadeen qoyskanagu inaan noolahay 7 bilood kadib yaa inaan noolahay inaan dhintay aniga keliyata maaha dhammaantanada 7 bilood markaan joognay ayaa qoysaskanaga nala tusay 7 bilood halka ku jiro biyo ma helo meydh ma helo musqul ma helo guriga dhexdiisa yaa intaanu jeerigaan kala goynay oon laba dhagax dhiganay yaanu halkaasaan ku dhex saxarona wax saxarada naga qaadaa ma jiro waan ku xanuunsanaynay waan ku rafaadaynay waxyaalaan xusuusta waxaa ka mid ah shay yaroo macawusa oonu helay iyo garangaran yar oodan iska saarayn injir baa nagu gashay injir yaa anugu runtii isma lahayn injir nooca intaa leeg baa yaa jirtaba isma lahayn yaa waxaan xusuustaa maalmaha ka mid ah aroortii macawustaada intaad ka guri kari weydo waan xusuustaa cabdikhadar baan xusuustaa macawus yar u xidhnaa intuu injirtii ka dhammayn kari waayey meesha laga laabo macawusta yaa la jaray macawustii yuu jaray wuu jaray macawustii buu jaray wuu gooyey macawustii yaa waxaa taa aan ku tusaya calashaan heerka ay gaadhay inaan ka guri kari weyno aroortii markaan soo toosno macawusaha intaad adoo qaawan macawusta aad xidhan tahay saarto yaa 4 nin oo saaxiibada ayaa injirta kala guraya maalmaha ka mid ah yaa waxaa dhacday markii injirtii naga dhammaan weyday yaa maxamed weli ayaa fikir soo jeediyey wuxuu yidhi niyo malaha injirtan ma walaynayna muxuu ahaa injirtii inba dib inoogu soo noqonaysa wuxuu yidhi qorshaan qaadana maanta bac intaan soo qaadna buu yidhi aan ku ururino waxaan xusuustaa waan tirinaynay markaan ku guraynay 2700 xabo injira yaan bac ku guray yaa oon meel surnay yaa bal at least bal injirtan muxuu ahaa aan dhammayn kari laanahay bal inay dhammaatiyeen kale laakiin waxay ahayd tu ka dhalanaysa waxay ahayd mad garanaysaa dharka nigisyadaan xidhanahay yaa wax ka dhalanaya ayay ahayd oon joojin karin mar raba waayo ruux bili aadana oon 7 bilood helin jidhkiisa uu biyo ku shubo yaa muxuu ahaa kama dhammaanayso waxyaalaha muxuu ahaa halkaa keliyata ma habeen walba annagoo halkaa ku jira ayaa nalala baxayey waan xusuustaa buur gaaba lala baxay 12 cishuu hog ku dhex jiray weyn dhabeelay aniga lala baxay hog baa la gelinay yaa dadku waxa laga yaabaa inay rumaysan hog dheer weeyaan oo almost 8 mitir hoos u qodan yaa oodan ogaanayn in ay habeen tahay iyo inay maalin tahay adoo halkaa ku jira ayaa haddana biyo lagu shubaya oo lagu dhibaataynaya every day nin baa lala baxaya waa dadka halkaa jooga ayaa waxay yihiin dad ka helayaba in dad kala dhibaateeya inay ku raaxaystaan askarta halkaa joogta waxay u arkaan shaqadoodu inay tahay
just in dadka la ciqaabo keliyata in shaqada loo idmaday ay tahay iyo aaminsan yihiinba waayo obsessive bay ku noqdeen nin askariya ayaa u yar lagu dhihi waan xusuustaa nin askariya ayaa nin daahir la yidhaaho oo anaad xusuusanayo yaa maalin maalmaha ka mid a anoo caqabad ku jira intii layga saaray meesha caqabad layga soo saarayo yaa waxaa la yidhi halgan u yeedh halgan markii aan caqabadii saa iga soo saaray yuu budhigu bilaabay garaacay waxaan ku yidhi wuu soo garaacayay ilaa intuu mas-uulkii komishinka ee xerada haystay uu ii keenayay oo ilkacse la yidhaaho ilkacse markuu saa ii soo fadhiisay waan xusuustaa waxaan ku yidhi ma adaa ku soo amray ugu yidhi intuu waddada soo socdo oo dhan soo garaac wuxuu yidhi haa anaa ku soo amray markaan saa u hor fadhiistay bakeeri shaahoo kulul buu igu shubay isoo qayilaya habeen walba intii nala soo saaro gurigaa dhibkaasoo dhan aan ku mutaysanayno intii inaannu halkaa ku jirra naloo quudhi waayo yaa kolba nin magaalada ka yimid oo meesha u qayilaad yimid yaa inuu satisfaction ka hela habeen walba intii mid annaga ka mida nala soo saaray yaa hortooda nalagu garaacayay muddo dheer kadib markaan halkaa ku jirray waxaa la yidhi intaan dhaafay waxaa weeyaan timaha nalaga xiray waxaa la yidhi timaha waa in laydin dhukuro dhammaantiinba waa nalaga dhukuri jiray timaha nalaga dhukuri jiray waxaa lagugu dhukurayaa oo lagugu xirayaa hal makiinada ayaa waxaana loogu xirayaa annagoo 30 ruuxa adoo ilmada iska tiraya oo yaadan ooyi karin makiinada maad garanaysaa 30 hal ruux bayna makiinadii u xirin annagoo 32 qof ayaa hal makiinadana loogu xirayay oo madaxanagu dhiigu naga daayay oodan ka adi karin lagu garaacay haddaad tiraahdo muxuu ahaa war uma adkaysan kara xanuunkan kadib markaan muddo dheer intaa ku jiray waana laga soo saaray markiina laga soo saaray xerada annaga run ahaantii maxaabiista kale maadaama uuna inta siyaasadu xidhan waana laga ilaalin jiray inaanu dhex galno muddo kadib ayaa waxaa dhacday in nala geeyo maxaabiistu meesha ay muxuu ahaa ku dhaqnay waan xusuustaa dadka halkaa ku xidhnaa muddo muxuu ahaa waxaan ku qiyaasayaa xilligaa marka nala geeyey halkaa 5 kun inay ahayd tiradoodu anigu waan xusuustaa waxaa la geeyey guri 17aad la yidhaaho gurigaas waagaa aanu xerada galay annagu kiis bay dadku u xariisan yihiin aniga waxaa laygu xareeyey guri la yidhaaho 17aad oo ay degan yihiin dadka ku xidhan dembiga dilka ah gurigaa waxaa ku xidhnayd waa arrintii iigu layaabka badnayd waayo hal guri oo 8 iyo 4 mitira yay ku muxuu ah xidhnaanayaan dad ay tiradoodu gaadho 200 iyo something sariiraha yaalaana waa 230 xabo waxaana ku xidhan guriga 200 iyo dhowr iyo waxaan qiyaastii 200 iyo dheeraad baa ku xidhan siyaado yaa ku xidhan waa arrintan rumaysan waayey halkaa waxaa ku xidhan dad waalan baa ku xidhan oo almost muxuu dhowr iyo 10 ruux oo waalan yaa ku jira dadka dhexdiisa guriga dhexdiisa ayaa habeen walba waxaad arkaysaa nin miskiina oo maxbuusa oo la garaacayo la dhibaateynayo aniga nin cabdirasaaq la yidhaaho ayaa gurigaa nala geeyey nasiib wanaag waxaanu seexan jiray dhulkaan seexan jiray waayo halkaa guriga dadku badni wuxuu ka qabo ruuxa kugu xiga marka uu isrogayo waa inuu ku toosiyo adiga haddii kale isma rogayo waxaana loo sameeyey nin sinasraad la yidhaaha ka shaqeeya oo shaqadiisu wax kale ma aha inuu dadkaa un kala seexiyo cidhiidhi heerkuu gaadhay muddo dheer baan halkaa ku jiray markaan muddo ku jiray halkaa waxaa dhacday markii ay ahayd 2008 bishii 8 yaa waxaa dhacday in maxaabiis ka mida maxaabiistii siyaasadda u xidhnida oo nalaftay oo la leeyahay been baad sheegteen qoryo aan jirin baad sheegteen nin waxaa jiray la yidhaaho maxamed sheekh aadan oo ka soo jeeda gobolka Galgaduud ninkaasaa wuxuu markuu xogaha bixinaya wuxuu sheegtay inuu qori BKM hayo maxamed sheekh aadan waa la soo qaaday waxaa la keenay meeshii uu ku sheegayay qorigii baa laga waayay kadib waxaa la yidhi dhammaan wixii ururkaa sheeganayay qoryo sheegatay oo dhan been bay sheegayaan ha la soo saaro waxaa la soo saaray dad 200 oo qof meelaha gaadha 200 ee qof waxaa la keenay meel yaroo madraka oo muxuu ahaa xabsiga dhexdiisa 200 iyo 300 askar gaartaa la keenay oo biro wadata tuubooyin wadata waxaa la yidhi ha la garaac raggan ha la maro
waxaa nin walba looga tegay nafka dhowr kadib maxaa bilaabatay in ay shakhsiyaad iyaga ka mid yihiin la yidhaaho waxaad qirataan dad inay idinka dambeeyeen inaad kacdoonkan samaysaan dadku isku wada shakhsiyad ma aha shakhsiyaad marka iyaga ka mid a oo muxuu ahaa aananigan muxuu ahaa inaan magac dhaba aanan rabin laakiin aan xusuusanayo oo qoliyihii orar ka mid a yaa waxay yidhaaheen arrintan oo dhan waxaa ka dambaysay qolyahan dhallinyarada ee siyaasadda u xidhan inaannu kacnaba annaga markaa dhib baa noo bilowday maalinta laga bilaabo 2008 bishii 8 habeen ay salaadii subax ay ku soo dhowdahay roobna uu aad u daayo bishii abriil iyo ku egtahay baan jeclahay waa gub yana la soo saaray dhammaantanno waxaana loo bilaabay ciqaabtii ugu xumayd baana loo bilaabay dhammaantanna horta dharkaana laga wada dhigay ya roob baa da'aya 4 cisho yaad bannaanka taagnaanaysaa oo roobku kugu da'aya muddo 4 cisho markaan roobku taagnayn annagoo nigis xidhan dhammaantanno ya ragga naga nigisyada xidhan ee isku qaawanaysa dhex joogna waxaa ka mid ah mid laba kala qabta wax ya ku gabadhiisa la qabo dad dhammaan isku wada xilli weeyaan ya intii la wada qaawiyey iyo roobku nagu duldii jiray waxyaalahan weligay loobin waxaa ka mid ah habeenada ka mid ah yaa waxaa dhacday anaa la soo kaxeeyey waxaa la yidhi nin baa halgan si gaara wax uga sheegay roob baa aad u da'aya waxaa jirta meel boy ah oo biyaha ka soo dhaca guryaha ay saa u maraan baa jirta halkaas aniga la geliyey laba ninoo liyo muxuu ahaa boolisa oo raincoat xidhan biyaha gibida ka yimaado dhan baa meesha maraya waxaa la yidhi halkaas ha ku jira baa la yidhi caawa oo dhan waa la iseexiyey intii la iseexiyey laba ninoo liyo muxuu ahaa boolisa yaa isku kay bedbedelaysa haddii aan isdhaqaajiyo oon saa isu yar jimicsayda ama biyaha iska rogaan isdhaho waa lay garaacayaa marka waxay noqotay inaan habeenkii oo dhan halkaa ku jiro saqdii dhexe markay ahayd waxaan xusuusanayaa 10kii dambe markay yaa nin miiri ugu dambeeyey aroornimadii waxaan ku soo toosay dadka muxuu ahaa maxaabiista furanka u soo qaadan aroorta quraacda jaqaftooda ayaan kusoo baraarugay isma ogeyn unconscious baa noqday aroortii nin taliyayaasha meesha ka mid ahaa madaxda ka ahay ayaa soo maray ninkoo sidii ii dul taagan oo isku bedbedelayaan wuxuu igu yidhi maxaa ku dhacay hadalkan u deysin ka soo saaray buu yidhi waa laga soo saaray hilibkaygii dhinacan aan u jiifay hordhan wuxuu ku hadhay meesha sibirka idin ku dhac jiray halkaas lagaga soo saaray waxaan kusoo noqonayaa gurigoo dhibka ugu faraha badan nagu soo maray annaga qabobaa la yidhaha qabob waxaa loogu bixiyey waa meesha cadceed ma arko gurigaas 4 dhinacba guryaha ka haya waa guri aad u qabow annagoo 30 iyo dhowra oo qaawan ayaa halkaa la isugu kana keenay ciqaabtii ugu xumayd baana loo bilaabay ciqaabaha muxuu ahaa loogu bilaabay waxaa ka mid ahaa kow in lagu istaajiyo waan xusuustaa annagoo 7 nina yaan taagnayn muddo aan ku qiyaasayay inay tahay 5 cisho yaan taagnayn boolis baa ku ilaalinaya haddii aad dhaqaaqdo ood jimicsays tiraaho waa lagu garaacayaa haddaad gidaarka taabato waa lagu garaacayaa ilaa marka dambe intaad unconscious noqoto ruuxu uu iska dhaco ood qab tiraaho ood sibirka ku dhacdo markaad dhacda laguma daynayo waxyaalahana weligay loobin waxaa ka mid a nin la dhihi jiray ibraahim oo muxuu ahaa ree huraala oo yar oo ku xukunaa inuu ahaa seel ololka muxuu ahaa ololka ONLF iyo nin la yidhaaho muxuu ahaa cabdullaahi dhuubane yaa sibirka ku dhacay waa askariyaho boolisaa yaa sibirka ku dhacay sida loo garaacayay ninka raggaanu islahayn naftii baa ka baxday sidii loo garaacayay yay istaageen iyagoo muxuu ahaa caadiya sidii loo garaacayay saa keliyata laguma daynaya annaga oo taagan yaa anigii maxamed aadan dalab intiina la kaxeeyey yaa intii bannaanka lagu rogo iska rogo idil oo carraa oo niisa oo lagu qooyo oo la kala muxuu ahaa bixiyo carrada yaa halkaa intiina la geliyaan intiina la qooyana lagu ridi jiray ya oo 20 nin aysaa ku haynaysaa laakiin naftu waa cajaayib
waxaasoo dhan adaa ku xoog badanaya markay naftu ku qabato ya waxaan xusuustaa carradii dhagaha iga gashay 4 bilood markaan sidaa idhaah dhagaha iga soo daadan jirtay ya halkii intiina lagu soo celiyay annagoo carradii leeyaan carradii haddana taagnayn quruurixii carradaasi anagii maxamed aadan iyo foosi iyo saalax faroodhi iyo intuu lugaha naga galay yaanu sida qodaxda iska soo fadhi jiray qodaxda sida qodaxda waxyaalahan ilooyin weliga waxa kamid ah 3-4 habeen markaan taagnaa 4 habeen yaa nin kaaba ahaa oo maxamed cabdi xaashi la yiraahdo oo hayb ahaan ka soo jeeda magaalada Dhagaxbuur oo isagu waxbana aan ku tiri jirin laakiin la yidhi raggan horjoogad ka tahay arma badana ahaan jiray yaa garasho anigay garanayo ya wuxuu sidii halgan bal maxaad u samaysaa maanta oo naxariis oo ugu naxariisan kartaa oo aadna dhib ka soo gaarin karin November wuxuu yidhi halgan dhaqdhaqaaq buu deyn waayay musqusha lagu xareeyo musqusha waxa weeyaan musqul yar oo 1 meter square oo aan biyo lahayn oo saxaradan ku saxarayna isa u tuulantahay ya meeloobo wuu in naxariistay ninkaasi wuu in naxariistay wuxuu yidhi halgan maxaad u samayn kartaa waayo muxuu iga badbaadinayaa taagnaankan taaganahay buu iga badbaadinayaa ha xaar baan habeenkii dhexurday laakiin maxay aniga ahayd habeenkii igu raaxo badneed baa weliga yaallahina meeloobo feverka uu ii sameeyay wuxuuna igu sameeyay wuxuu ka dhigayaa inuu aniga ciqaabayo ya oo waayo hadduu in yaroo naxariis isaga laga dareemay isaga la dhibaateen laakiin aniga wuxuu ii sameeyay fever buu sameeyay habeenkaas waxay habeen kaliya teen seexdayba muddo 3 bilooda oo sibir jiifnaa anagu cuntaday noqotay aroortii waxaan la siin jiray bakeeri yar oo shaaha oo bakeeri ana ma garanayo kulli wax isticmaalo oo meel lagu isticmaalo ma garanayo caag ah yaan lagu siin jiray in yaroo shaa iyo xabad furan kooda saace habeennimana biyo maanan lahayn biyo waxaa lagu siinayaa koob yar oo biyo lagu siinayaa 24 hours roob la noo qiyaas jiray nin roob la yiraahdo yaa noo qiyaas jiray biyaha markay kooda saace fiidnimo gaadhay waxaan la siin jiray macaroni biyo lagu soo shubay oo aan milix lahayn wax uu leeyahay jirin oo aan nafsadaada halka in ka degi jirin haddana maxaa lagu qiyaas jiray gacanta dhiga lagu dhahayaa gacanta arintaas maxay gaadhay dhammaan inaan fadhiga ka wada kicweeyna arinta waxa noo dheer waxa weeyaan aroortii waxaan xusuustaa siraaja hadal uu yidhi meelooba weliga yaa Allah siraaja wuxuu yidhi markaynu halgan dibadda u baxnay hadduu ilaahay nabad inagu saara anigu u malayn maayo inaan nabad ku baxayne oo ilaahay muxuu ahaa shiraac looma dhintay haddaan nabad ku baxno wuxuu yidhi dadku waxyaalahayna inaga rumaysanayn waxaa ka mid ah aroortii intaad sibir fadhiisato ya oo qiimeyn aad halkaa la yidhaah waa la idin qiimeynayaa aroortii 1 saac markay tahay yaa laga 8 duhurnimo yaa saanu u fadhina sibirka yaa 1 saac nala siin halkaas saac baan madkanaysa gidaarka ku tiirsanaynaa haddana waan tukanaynaa intaan gabagabaysanaan tukanaynaa kadib haddana waan gelaynaa 7 saac ee dambe ee habeennimo yaa saanu sibirka u fadhino yaan ka kacaynaa wuxuu yidhi arrinta ma la rumaysan buu yidhi muxuu ahaa halganow waxaan ku yidhi waa adagtahay in la rumaysto ya way adagtahay baan ku yidhi in la rumaysto waa waxyaalaha ayna dadku qaadanayn buu yidhi halganow haddii aan mustaqbalka uga sheekayno ya waxaa kaloo xusuustaa waan daalay cunto la'aantii nadaafad la'aantii biyo la'aantii dadkii maxaa dhacday dhammaantano inuu cishaba un soo dhuldhaco oo markii dambe aan fadhiga ku tukanno ya rag waaweyn baa nagu jiray waxaa kamid ah muxuu ahaa Colonel Caydiid baa kamid oo fadhiga ku tukaday maalintii ugu horeysay intuu awoodi waayay siraaja ku tukanayay fadhiga maxamed aadan baa fadhiga ku tukanayay ya dhibaatada muxuu ahaa ninaan saaxiib ahayn qiso ku dhacday intaan guriga qowga ku jiray ninkan saaxiibkana waxa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi ama kaag baa la yiraahdaa waa nin haybtiisu ay tahay muxuu ahaa ciise waa nin jabuutiyana kiisku wuxuu xidhnaa waxay ahayd nabadiid baa tahay muxuu ahaa oo anlafa ninkaas wuxuu ahaa nin ganacsada waxaa laga soo qabsaday xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya Soomaaliland iyo Itoobiya xariirad meesha la yiraahdo ayaa laga soo qabtay ninkaas oo muddo dheer dulmi ku xidhnaa dhibaato fara badan inay soo gaadhay wuxuu kamid ahaa intaan guriga ku jirnay qaboobe ilaa garaaci la garaacay 10 nin baa garaacayay habeen walba 10 nin baa garaacayay ilaa markii dambe
uu habeenada kamida uu jeclaystay in habeen walba la dhibaateeyo oo la garaaco inuu ka jeclaysto inuu muxuu ahaa inuu muxuu ahaa inuu naftaba isdhaafiyo heerkaasuu gaadhay garaaci la garaacayay wuxuu optiona qaatay inuu isdilo waa ruux islaama laakiin dhibku markuu kaa bato ficil walba uu kaa suurtoobayaa maxamed cabdullaahi amakaag wuu isgowracay maxamed cabdullaahi amakaag wuu isgowracay intii halkaa laga qaaday oo kaaramarre la geeyey isagoo isgowracay yaa the whole night la garaacayay the whole night isagoo kooma ku jira intii la soo toosiyey yaa la garaacayay maxamed cabdullaahi amakaag waxyaalahana weligay iloobin weeyaan markaasaa isagoo silsilad saa ugu xidhan oo dhiiggu jidhkiisa qariyey yaa waxaana lagu lahaa ma eegi kartaan lama hadli kartaan waxba uma qaban kartaan carwaa ninka saa usoo daymooda waa walaalkano run ahaantii waxba maanaanu qaban karayn laakiin waxaanu dhihi kari weynay adkayso maxamedoo adkayso yaan dhihi kari weynay waayo maxaan ka cararaynaa dhibaato kasii badan tanaan ku jira inaynu soo gaadho inaanu ninka walaalkanaan idhaahno waa adduunya adkaysa maxamedow waxaan aad u xusuustaa ninbaa wuxuu yidhi buurgaaba ayaa labtobkiisii waxaa haysa gabadhiisoo hargeysa joogta buurgaaba ciqaab fara badanba waxaa lagu mariyey inuu laabtoobkaa keeno laakiin laabtoobka lexjecle kama haynin ciqaabta inuu ka baxo inuu laabtoobka keenaa way dhib yartahay laakiin wuxuu ka cabsanayay gabadhiisa hargeysa ka imanaysa ee laabtoobka soo qaaday suu cabsanayay in la xidho muuna laabtoobka rabin laakiin muddo hal sanaa lagu ciqaabiyey buurgaabo laabtoobka xog baa ku jirtee keen laakiin isagu laabtoobka muuna u cabsanayn gabadhiisa hargeysa ka imanaysa uu cabsanayay waa marka koowaad hadday halkan timaado wuxuu ka cabsanayay in la xidho aniga maxay igu dhacday maalmaha ka mida markaanu ku jiray titanic yaa gabadh ubax la yidhaaho ayaa waxaan ku yidhi walaal ubaxay oo narsiga ka shaqayn jirtay waxaad ii keentaa buug iyo qalin si aad iigu keentaba buug iyo qalinkiiba ii keentay waxaan isri dhibaatooyinka faraha badan ee halkan idinku soo maraya at least balniyo recordi garee anugu run ahaantii aqoon la'aan bay haysay waayo xabsigu waan ku cusbaa ma garanayn waxaa ii suurto gashay inaan waxyaalo fara badan qoro kadib maalmaha ka mida yaa anoo xerada ku jira yaa waxaa la yidhi waa la isoo saaray habeen badh waxaa laygu yidhi buuggii aad qori jirtay markaad qawiga ku jirteen waxaan jeedaa titanic markaad ku jirteen waa inaad keentay halganow marka nin muxuu ahaa ogaa inaan anigu wax qorqori jiray yaa wuxuu is yidhi xumaan kama ahayn isaga waa la ciqaabay aad baa loo ciqaabay marka wuxuu is yidhi maxaa keliyata ood maanta ku badbaadi kartaa oo xog kuu noqon kara ood sheegi kartaa ood dhibaatadan kaga bixi kartaa iyo musqusha iyo hogganaad ku jirto wuxuu yidhi arrinka keliyateed maanta kaga bixi kartaa waxaa weeyaan iyaguna ay u arkayaan arrin muhiima inaad sheegto wuxuu halgan waagi qori jiray wuxuu yidhi halgan baa waaganu titaani ku jiray buu qori jiray xumaan kama yeedhsin waxaa keliyatoo ka yeedhisay inuu dhibaatada ka baxo anaa habeen bar layla soo baxay waa laygu bilaabay garaac baa laygu bilaabay anu baydii way horta muxuu ahaa garaaca waxaaban ka mid ahaa dadkii 4 bilood loo qoray in la garaacuun maalin walba 4 bilood inayna dadku rumaysan ba laga yaabo jilaac muxuu ahaa garaac loo dhinto marmar sometimes as day 4 bilood baa aniga ii qoraydba sidii muxuu ahaa xilligii abay macmiil liidi oo lay garaacayo maalin walba la soo saarayay marka waxaan wuxuu yidhi halganba buu qora waxa la yidhi buuggii keen waxay gaadhay ilaa muxuu ahaa cabdiili bay gaadhay xitaa oo la yidhi ninkii halgan ahaa isagoo xabsiga ku jiro buu qoraa buuggii keen baa la yidhi buugga markaanu intaan waxaan ku rekoordi gareeyey dhacdooyinkii meesha ka dhacay oo dhan yaa gabadhii buugga ii keentay baan u dhiibay oon ku yidhi waxaad iigu geysaa xaafaddeedii xaaskaygii gabadhii way soo qaaday buuggii way keentay xaafaddeedii keentay xaaskaygii gabadheedii u keentay waxaa la yidhi ishuugii ugu khatarsanaa buu ahaa 8 cisho yaan waxaan ugu jiray buugga inaan caqabad keeno musqul baan ugu jiray arrintii igu la yaabka badneed waxay ahayd aan xusuusto
anoo musqushi ku jira yaa qorshaha waxaa soo baxay culimada xabsiga ku xidhan ayaa cabdi ilay falaysa oo jinaaso ku tukatay waxaa la yidhi wixii culimo ah ee xabsiga ku jira oo dhan ha la soo saaro waxaa la soo saaray 70 nin oo 5,000 qof ka mid ah waxaa la yidhi cabdi ilay baad habaarayseenoo jinaasaad ku tukateen waxaa loo bilaabay culimadii in ciqaabtii ugu darayd la mariyo oo caqabadaha la kala geliyo marka anoo caqabad ugu jira boogii yaa waxaa dhacday anoo ka calacalaya marka labada looyaha la iska garaaca xilliga labada loobaa la iga garaacay ma kici karayo inaan gurgurto mooyee ma dhaqdhaqaaqi karayo dabadaan ku siqayaa alxamdulilah waxaa laga yaabaa inaana dhihinba meeshii yaradii cidhiidhiga haydan ku jiray anoo dhaawaca oon dhaqaaqi karin een ka calacalayay yaa waxaa dhacday 2 nin oo aan ku qiyaasayay da'dooda inay 70 jir yihiin baa musqushi la igu keenay aniga waan xusuustaa nin sheekh ibraahim baa la dhaayay nin waxaa la dhaayay muxuu ahaa cabdifataax muxuu ahaa sheekh axmed cabdifataax waxaa la dhaayay sheekh axmed simawina la dhaayay waa meeshii yaradii aniga igu filan lahayd in gurguranayay ee musqusha dhexdeeda ahayd yaa waxaa la igu keenay 2 nin oo waaweyn oo mid aabbahay uu ka weyn yahay 75 80 jir yahay oo sheekh ibraahim la yidhaaho muxuu ahaa raxan weyna oo reeqalaaf oo ashabaab u xidhnaa in la garaaco oo isagoo meyd ka dhowra meyd ah anigii xanuunsanayay baa bogsaday maxaa lagu haystaa odayga waxaa leeyahay qardhaasaad dhigtay madaxweynihii baad fashay jinaasaad ku tukatay waxaasaa lagu haystaa ninkaas waxaa weeye ninaadan u quudheen maadan u quudheen inaad ul ku dhufato marka waa maxay adigii dhallinyarada waad bogsanaysaa markaad aragto muxuu ahaa aabbayaasha iyo awowyada waxa lagu samaynayo muxuu ahaa waad qusanaysaa muxuu ahaa haddaan waqti badan bay u baahan tahay inaan meeshan ka sheekayno haddaan dib ugu noqdo muxuu ahaa nidaamkii naloo soo xukumay 22 January markii annaga nala keenay xabsiga maalin khamiis bay waan xusuustaa 7 cisho kadibna waxaa naloo keenay 29 Soomaa 29kiina waxaa naloo keenay waraaqo xukuna nin Bashiir la yiraahdo arkiifyada ku qoraa iyo naagtii arkiifyada haysatay la dhaayay saga yaa waxay noo keeneen waraaqo waxay yidhaaheen waa kuwa xukunkiinni anuu waxaan ahaa xilligaas shakhsiyaadka ugu nasiibka badan baan ka mid ahaa xagga muxuu ahaa xukun dheerida anuu waxaa la igu xukumay ma garanayay reasonka 7 malaha 7 waxaa la igu xukumay 7 sano dadkii ugu nasiibka badnaa baan ahay waayo 15 17 waaba kan muxuu sheegaynay 200 iyo muxuu ahaa 30 markaan isku wada daray intan lagu xukumay 230 bay ahayd hadii khaldanay 230 marka 230 ka anu 7 baan kala haaba 7daasaan lahaa waa 7 muxuu ahaa waa la naxariistay